marka saad wada arkaysaan ganacsiyadii way kacayaan shaqo la'aan baa laga wada cabanayaa qof waliba quuto daruurigiisii buu ka fikirayaa iyo maxaad cuntaa qof waliba wuxuu ka fikirayaa qaabkii uu noolaan lahaa ee uu magaranaysaa u daberi lahaa noloshiisa uu soo dhacsan lahaa si uu u noolaado sababta u weyn ee keentay baahidan iyo dabaka warwarkan maxay tahay inaynu isweydiinaa loo baahan yahay oo aynu fikirno ilaahay caqliga waxa uu inoo siiyey inaynu ku fikirno waxa loo baahan yahay qof waliba horta bal maxaa marka hore su'aasha loo baahan yahay inaad isweydiisaa waxa weeyaan aroortii marka aad soo baxdo ee aad toosto maalinkaaga qarashka ugu badan ee aad isticmaashaa halkuu ku baxaa qof walba marka uu xisaabtamo budgetka ugu badan ee uu isticmaalaa waxa uu ku baxaa waa cunto iyo cabitaan boqolkiiba 70 ama 80 haddaan la odhan waa maxaad cuntaaba ku baxaa waayo u fiirso waxa ugu badan ee lacag ku baxdo ama qoys walba marka la eego cunta kaga baxda lacagtu waa wax halka la mariyo ay qof walba lacagtu kaga baxda haddaba maxaa keenay maadaama oo cuntadani ay tahay waxa ugu weyn ee lacagteena ku baxdo ama baahida ugu weyn inuu qabnaaba maadaama oo ay tahay cunto oo number 1 balaanka qof waliba balaanka koowaad uu leeyahay waxa weeyaan waa maxaad cuntaa weeyaan maadaama maxaad cuntaa tahay waxa loo baahan yahay in laga fikiro qaabkii cunto aynu samaysan lahayn cuntadii xagee ka imanaysaaba meeshii taala su'aasha la isweydiinayo labaad waxa weeyaan cuntadii xagee ka soo baxaysaa cuntadii ilaahay inagaga muu dhigin lacag inaga lacag isaga dhigay cuntadu waxay ku baxdaa roobka ilaahay oo lacag la'aana waxa kale ku baxdaa daaqa dhulka ka soo baxaya oo bilaasha cuntadu halkaasay ka bilaabantaa haddii fikirkaaga aanu qaloocsanayn oo si kale u fikirin cuntadu waxay ka bilaabantaa halka waa roobka ilaahay keenay iyo daaqa dhulka ka soo baxaya xooluhu cunayaan baa ay ka bilaabantaaba nolosha markaa labadaas ilaahay lacag la'aan buu kaaga dhigay adigu laakiinse waxaad ka dooratay inaad lacag ku bixiso oo aad dalka dibadiisa wax lagu soo sameeyey lacagtaadii oo dhan intaad qaado aad ku soo bedelato kadibna aad faqri u dhimato oo beri ka maalin haddii waxaasi istaagaanna aadba noloshaadu ay qirqiir ku jirto oo inaad noolaan doonto iyo inaad dhiman doonto xataa la isku haysto ayaad noloshaadii u bedeshay marka maxaa keenay in ilaahay caqligu ku siiyey oo caqliga inaad ku fikirto ilaahay ku siiyey maxaa keenay wax aad $0 ku heli karto in aad malaayiin dollar intaad qaado aad ku soo bedelato maxaa soo weyn xabad beeda ugu yar dibadda laga keenaa hilib digaag dibadda laga keenaa baasto dibadda laga keenaa bariis dibadda laga keenaa waxan oo dhan ee dibadda aad ka keenayso waad samayn kartaa adigu $0 waliba wax taagan weeyaan marka aad samaynayso qof walba maanta noloshiisa ma daberi karaa oo isku filnaansho dhanka cuntada wuxuu cunayay waxa cabbi lahaaba ma heli karaa haa uu heli karaa qaabkaynu ku helaynaa kaliya waxa kaa xigtay inaad beerato wax oo aad xoolana dhaqato digaagid baa u yaray waa inaad haysato oo beedkaad cunayso adigu aad la soo baxdo cuntadaad cunayso waa inaad dhulka ka beerataa hilibkaad cunayso waa inaad xoolaha dhaqatay qalataa intaasaa kaa xigta qof waliba maanta wuu bilaabi karaa oo noloshiisa wuu bedeli karaa oo wuxuu noqon karaa qof wax soo saar leh oo isku filan oo noloshiisa oo dhan daberi karaa baahida ugu weyn aynu qabnaana maanta waxa weeyaa waa waxaynu cunno iyo waxaynu cabno weeyaan baahi kale oo maanta ummaddeena haysata ma jirto qof waliba maanta waxbuu bartay uu yeesheen iyagoo aan aqoon lahayn bay noloshooda haddana ku filnaayeen oo ay isku filnaansho nololeed ay gaadheen maanta qof waliba jaamacad buu ka baxay maanta bulshadeena inta wax baratay aad ayay u saraysaa kumanaan qof baa wax bartay laakiinse mabaadii qaldan bay qaateen oo qof waliba wuxuu aaminsan yahay in waddankiisu uu yahay waddan caydha oo aan wax soo saar lahayn oo waxba laga faa'iideyn oo gaajo loogu dhimanayo ayaa qof walba laga dhaadhiciyay laakiinse in gaajo loo dhinto mabaadiidan qaldan ee aynu qaadanay ee guracan ayaa keenaya marka mabaadiidan aynu haysano haddii aynu bedelno oo aynu qof waliba uu iska dhaadhiciyo in uu magaranaysaa wax soo saar samayn karo oo qof waliba uu iska dhaadhiciyo wixii uu cuni lahaa iyo wixii uu cabbi lahaaba inuu isagu la soo bixi karo oo dhulka uu kala soo bixi karo nolosheedu waxay noqonaysaa nolol qani ah bulshadii waxay noqonaysaa bulsho xasiloon oo aan ka warwarayn waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen toona isku filnaansho nololeedna waynu gaari doonaa ganacsi walba oo ma garanaysaa maanta khasaare ku jiraan wuxuu noqon doonaa ganacsi faa'iido leh oo bulshadii waxay noqonaysaa bulsho qaniya lacagii dibadda inooga baxayeen waxay noqonayaan lacaga inaga inoo soo noqda oo aynu kaabayaasheena dhaqaalaha hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto nolosha kale aynu ku dhisano laakiinse imika problemka ugu weynayna haystaa waxa weeyaan lacagtii yareyd ee dibadda aynu ka helaynay oo bulshooyinka adduunka maba heraanba lacag waxay sameeyaan iyo miyay soo saaraan ummadda lacag ka soo bedeshaan mooyaane nasiib aynu ummadda dheernahay weeyaan in lacag bilaasha
ay heladeenu inagu caawiso intii yaradii laynagu caawiyeyna aynu dibadda u dirno oo aynu bariis iyo baasta soo siisano marka maxay inala gudboon waxa qof walba maanta la gudboon inuu habfakirka qaldan ee laga dhaadhiciyey u bedelo shaqadu ceeb maaha inaad wax beerataa ceeb maaha inaad xoolo dhaqataa ceeb maaha qof walba maanta hilibna waad u baahan tahay xoolama dhaqan maayo waa caqli xumida laynaga dhaadhiciyey weeyaan meesha taala iminka waaba la isku caayayaaba reerminimadii dadkii iminka maanta miyiga joogay way ka soo wada yaacayaan magaaladii soo wada gelayaan shookaantay wada qabsanayaan waxa laga dhaadhiciyey miyigan aad joogtaa waa faqri waa gaajo maanta dadka magaalada jooga waxa loo baahan yahay in ay isbedelaan maadaama ay dad aqoon la noqdeen oo ay wax barteen oo magaranaysaa maanta ay u baahan yihiin aanay jirin maanta qof waliba aqoon buu leeyahay cilmigii wuu fududaaday keliya in wax soo saar sameeyun baa loo baahan yahay qof waliba maanta wuu awoodaa oo magaalada joogaa in uu magaalada intuu isaga baxo buul aqal Soomaali hadduu ka dhisto magaalada banaankeeda oo wixii uu cuni lahaa beerto dalagii uu sanadkaas oo dhan ku noolaan lahaa uu soo saarto xoolana uu dhaqdo oo caanihiisii uu la soo baxo oo uu beedkiisii la soo baxo oo baahidiisii nololeed oo dhan uu kafeeyo qofka waxba kama maqnaba waxa uu helaa faa'iido u noqonayaan $100 haday ku soo gasho $100 way ku kaydsamayaan 10 sano kadib aad cunaysaa haddaad doonto ama waxaad rabta ee ma garanaysaa markaa aad u baahantahay niyadda aad ku hayso ayaad siisanaysaa adigoo naftiisa oo aan baahi qabin laakiinse maanta maxaa jira qof waliba wuxuu gelayaa dhifid buu gelayaa maanta qof walba waxba kuma filna qofkii intaasoo $100 isagoo helay ama haysta ayaa ma garanaysaa qofkii haddana baahidiisii aanu kafayn karin oo bil walba uu ku leeyahay minus baan ku jiraa oo waxba iga khasaaray waxba sidan iga ah sababta u weyn ee waxa keenaysaana waxa weeyaan qofkan isku filnaansho nololeed isagoo aan gaarin oo bayskiiba aan ka dhisanayn ayaa waxa uu u guurayaa in uu ma garanaysaa nolol dhaldhalaal leh bulshadii markaa fikir qaldan baa ka dhacsan fikirkan qaldan waxa loo baahan yahay dhalinyaro inaynu iska saarno oo aynu dhulkeena u soo jeesano in wax beerano oo wax soo saar samayno maanta wax kasta oo aad dalka dibadiisa maanta oo aad cunayso oo dalka dibadiisa ka soo galaya oo ma garanaysaa lacag kaaga baxayso waa wax aad $0 ku heli karto maanta haddii isbarbardhig lagu sameeyo maadooyinka ama faa'iidooyinka laga helo bariiska iyo faa'iidooyinka laga helo garowga haddii la isku eego waxa ka badan oo aad uga faa'iido badan garowga faa'iidooyinka laga helo ayaa 100% ka badan laakiinse waxa laga dhaadhiciyey caqli reer magaal baa laga dhaadhiciyey fikrad reer magaal baa lagu shubtay waxa laga dhaadhiciyey in bariisku ka nafaqo badan yahay uu ka macaan yahay oo ma garanaysaa reer magaalnimo uu yahay bariiska in la cuno laakiinse fikirkaasi waa fikir qaldan noloshaada bedel oo maanta isdaba qabatee baahi aan ilaahay ku keenin ha isku abuurin noloshaada bedel noqo qof isku filan oo wax soo saar sameeya oo wixii uu cuni lahaa sanadka dhan la soo baxa wixii uu cabi lahaa la soo baxa ilaahay lacag kaaga mu dhigin bilaash baad ku helaysaa waxaan lacagta aad siisanayso maalin walba bilaash baad ku helaysaa waad beeran kartaa meeshaad seexanaysay magaaladan wax aan ahayn buuq ma yaalaba magaaladan waxaan buuq ahayn ma yaalo marka reality inaad ku noolaataan dhalinyaro baa loo baahan yahay iyo qof kasta oo af Soomaaliga garanayo af Soomaaliga aan ku hadlayo fahmayo oo ka dhacayso waxa loo baahan yahay inaad noloshaada bedesho marka haddii bulshadu noocan imika ama dhaqankan imika aynu wadadan aynu hadda hayno aynu ku sii socono maxaa dhici kara in la isweydiiyo loo baahan yahay haddii wadadan imika qaldan ee guracan aynu haysano haddii aynu sii hayno oo wax soo saar la'aanta iyo ma garanaysaa qasaaraha noocan ah aynu ku sii jirno maxaa dhici kara 5 sano kadib waxaan aaminsanahay bulshadan inay noqonayso bulsho gaajo qaarkood u dhimato bulsho iscunaba gaajo darteed inay noqonayso ayaan aaminsanahay haddaan 90 degree inta imika wareegtaan aydan u jeesan dhanka wax soo saarka iyo beeraha oo aydan fikirin waxaan noqonaysaa bulsho gaajo u dhimata oo faqrigu inta uu sii 3 laamaya uu sii 3 jibaarmaya ama uu sii 4 jibaarmaya haddii imika waqti la eego kadib oo 5 sano kadib maanta waxaan way sii kordhiyaan gaajadan imika aad ka fikiraysaan iyo qasaarahan ganacsiga ka caya iyo waxani way sii laabmayaan way sii 3 jibaarmayaan haddaan imika aan la isdaba qabatayn oo aan laga fikirin qaabkii qof waliba noloshiisa uu maareyn lahaa haddaan laga fikirin waxana way sii 3 jibaarmayaan way sii 4 jibaarmayaan barsaalaha haddaynu soo qaadano 2015 bulshada qaab nololeedka noloshiisa u qaboobeen iyo 2025 noloshiisa u kulushahay markaad isku barbar dhigto oo isbarbardhig aad ku samayso midkee ay noloshu macaaneed oo qof waliba aanu ka fikirin wax cuni lahaa iyo wax cabi lahaa maanta
ay noloshu inta badan bulshada marka boqolleyda la eego anu kama hadlayo qof dheragsan kama hadlayo anu waxaan ka hadlayaa percentage-ka bulshadu intay u badan tahay baan ka hadlayaa 2014 2010 noloshu say u qaboobeyd maanta uma qabooba maanta noloshu way kululaatay bulshadii magaalada isugu wada timid qof waliba wuxuu doonayaa inuu adeeg bixiyo adeegiina bulshadii ma wada bixin karto marka maxaa imanaya in bulshadii khasaaro noqoto oo qof waliba uu khasaaro galo bulshadii wada ganacsatay noqotay bulshadii marka 70% ay ganacsato noqoto ama 60% qof waliba uu ganacsado noqdo ama adeeg bixiyo yaa wax iibsanaya bal isweydiin su'aashan wixii la iibsanaya wuu yaraanaya marka iibkii baa yaraanaya bulshadiina waxay noqonaysaa bulsho mar walba khasaaraysa oo ganacsi un baa iga kacan qof waliba ku oranaya khasaarun baa lagu wada jiraya khasaara lagu wada jiraya marka qof walbana waxaan eriyanaya oo mar walba ka fikiraya waxa weeyaan number 1 baahidiisa koowaad qof waliba waxa weeyaan waa wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa dhaqaalaha qof walba ama family kasta dhaqaalaha ku baxa waxa uu ku baxaa waa waxay cunaan iyo waxay cabaan boqolkiiba 20 mar dhama waxyaalaha kale ama waxyaalaha kale qarashada kaga baxa laakiin boqolkiiba 80 family kasta qarashku ku baxa waa qutul daruuri weyn waa wax la cunayo wax la cabayo bay hoos imaadaan waxa ku baxa oo dhan marka bulshada waxa loo baahan yahay inaad hab fikirkiina bedeshaan oo aad noqotaan dad isku filan oo wixii ay cuni lahaayeen iyo wixii ay cabi lahaayeen bala soo baxa imika tusaalaha hadda ma soo qaato berigii hore xaafaduhu waxay haysan jireen oo dhaqankii saxda ahaa bay yara haysteen xaafadu waxay haysan jireen riyo dhaqan jireen xaafadu walba waxa laga yaabaa inay haysan jirtay 10 riyaad 20 riyaad ama 15 riyaad bay xaafadu waliba haysan jirtay inkastoo xun tahay magaalada in riyo lagu hayaa oo ay tahay inaad riyahaaga miyiga ku dhaqato oo aad halkaa ku xanaanaysato aad noloshaada ku maarayso inkastoo tahay laakiin si haddana waxaan ka hadlayaa faa'iidada lahayd baan ka hadlayaa anigu aan u socda faa'iidada lahayd waxay ahayd xaafada 10 riyaal haddii imika la eego dhaqaale ahaan qof aan waxba haysan oo aan xoolo lahayn isbarbardhig maanta haddii lagu sameeyo xaafad 10 riyaal lahayd iyo xaafad aan waxba lahayn oo riyaal lahayn waxa dhaqaale badnayd oo qani ahayd marka la eego oo noqo ahayd laakiin inta badan bulshadeenu xaafad caydhay u haystaan laakiin si haddii la eego isbarbardhig lagu sameeyo xaafada 10 riyaal iyo xaafada aan waxba xoolo lahayn xaafada xoolaha la qaniya haddii isbarbardhig lagu sameeyo maanta oo qaniyad ahaan u qaniya nolol ahaan u qaniya xaafada aan xoolaha lahayn si kasta lacag ha haysato lacag waxa ma tarto lacagta waxba lagu bedeshaa lacagta maxaad siisantaa lacagta waxaad soo siisanaysaa waxaad cunto ma siisanaysaa lacagtu yaani been ku sheegin $10,000 maanta hadaad haysato way ka dhamaanaysaa بريتول أديكون لعك هيسن بدر كيسن محاكو هريا هداد حولها هيسطو وحي أدعونيسي وحي أدعبيسي كما فكريسي لكن سي قفق حولها لي محو كاقد ويا وحي وعني لها مانتا يوحي وعبي لها كما وروري ووحي وعني لها يوحي عبي لها بوهيستا لكن أدو محاك فكريسا مركا لعكتها دي أدويلو وهي لعكتو كارنا ماتي للعكت الساد وحصوصي السنة سوحا عنتي واحد عبتوه دمانيسا إن روش هادي وقود بريسي ودمانيسا طبعا كنا دورور والوايا لباتوكو والوايا بقولكو والوايا لكن سنكي حولها لها وقني وكانت تجرسين مر والبا وحي عون لها وحي عبي لها وهايستا نروشي عبي أبين كان كتب في عمرو ساحاني أنتو عاني سيو هي بكيس عنو أدقول لكن قاعد شادو دي مريسا نروش هادو نقل غير بيقريسا مركا واحد لو باهي إن ريالتي لغون ولادو وخيالي إن نروشان بين تها دالانتيد كايا اللي نقد أدعي أين كسون نقونو وأين نبتي سووني ما نلو باهي نرجرق وأين نفكرنو وأين ودنا كسوي عن ودنا نبتها إنه كسون عن هذا وقت بين هاي السنوات كان السنغامل من وإن عاد يسبد الشو ووحى $0 إلى هيك هذا اللي جاي العقل أنت إلى هيك هذا اللي جاي إن تكفى إذا ستني معوين كإلى هيك سيء وأن تقف وحي عن الهاي وحي عبد الهاب الأوكا كان صوبها ونروي معان وقلوبكم ولا مركا وحن ربائنا مقالا نوعا أو كلا عن إني صوت وبمر والبا وأن كذا هذا يبل شدة نقاب كي أي أهر مر الهاي يعقبها ما أنت تاجن سيد أي موبح الهاين أين ربائنا المقالة عنو كلا إنك سميه مر والبقوت شو بتاعه ما كان حرتيني أنا بيج كيجن أتصوف لو جريسو وأتشير جريسو قف والبقو مقال كيجن تعورو حنك أتصنع يا إنه ميل المقال كان جرسي وقف كستو وأصحابتي سأه أم إهل كي سأو ودرو سو وقف عيديستو وما قرنا يسبب شدة أيون قطب وشو وحصو صار له ويسبد الشيء ومرحلة إمكان نبعتها أي كتير تكبحلا حفظه يوحد كفايدة إن شاء الله كهري دون تبوجيجن أديات بدو ما تصنتهاي مقعي ومحمد شام علي وكم مقعدين عالم أديات بني سودوين يردمان أصحابها برشوا نكسن سودو وادن الدنيا